nimciyo deganaan dadaalo gashe dalkoo horumara ku dirisada oo adoo isku duuban wanaaga dugso daryeel ku labe dantaada bulshooy daxaada calkiyo daribka hayso wixii dumin kara nabadda diidood nimciyo deganaan dadaalo gashe dalkoo horumara ku dirisada oo adoo isku duuban wanaaga dugso daryeel ku labe dantaada bulshooy deeq baad u heshay calanka daraje oo dushaada suro xuskiisa haddeen deeq baad u heshay calanka daraje oo dushaada suro xuskiisa haddeen waataada kadii dib loo dhisaye عدمان دونيدي كديرنتي افتينكا كدارن كدوك سبدلان اها الله افتينكا كدارن كدوك سبدلان واتادك دي بلودي سي عدمان دونيدي كديرنتي iftiinka ka daaran ku doog sabudlan oy iftiinka ka daaran oy ka daaran ku doog sabudlan عيراتهم باكدوغان دولكي حتى ذهبكيو معدن تدوركا بورا حديدبتا أقون كديدان حتى ترى لي تلقى بيرتان وكلون تريانا ديبتا ودرتان سيدا دوني دانا فقري قديدان عيراتهم باكدوغان دولكي حتى ذهبكيو معدن تدوركا بورا حديدبتا أقون كديدان حتى ترى لي تلقى بيرتان وكلون تريانا ديبتا ودرتان سيدا دوني دانا فقري قديدان ويدالكا نسميو لداوانيو ودد كيباهيدو دعما وددين dalka dhismayo la daawanayo oo dadkay baahid dhammaan wadadeen waataada kadii dib loo dhisaye oo dhammaan dunidii runtii sida uu warsamo sheegay safarkan wuxuu ahaa safar shaqo aan ugu kuurgalaynay 2 sano kadib markii aan dhagax dhignay shaqada socota oo warbixinteeda aan mar walba helaynay inaan indheena ku soo aragno meesha ay marayso iyo inta dhiman iyo inta ay qaadan karto maadaama fursad ay tahay shaqada qayb kamida waxaa kamida kulankan halka isugu nimid dabcan deked in la dhiso hawl sahlan maaha laakiin haddana hawl kasta oo adduunka ka qabsoontay oo ay ku jirto in dayaxa la tegay dad baa sameeyey annaguna dadkii baan ka mid nahay marka isku daygaas Soomaalidu ku cusbaa markay fiiriyaan awoodooda aqooneed iyo midooda dhaqaale waxaa la isdhihi karaa isku day aad u wanaagsan
oo diila geliyay bulshada Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan reer Puntland ayay noqotay waxaan u baahanahay kulamo aad u badan maadaama dadka Soomaaliyeed muddo dheer ay ku noolaayeen hab nolol sahlan oo nolol miyi u badan oo dhaqanka magaalada oo dekadaha iyo baaxmushirka iyo wax la wada leeyahay iyo wada noolaanshaha ay iska adkayd oo beel walba meel gaar iska degan ama nin walba deegaankiisa gaar iska degan arrintaas dabcan mudday soo bilaabatay 50 sano u dambeeyay ama 60 sano u dambeeyay ama 70 sano u dambeeyay magaalooyin baa asaasmayay deegaanada isku guurayay dadku waxay ku jireen in ay dawladdu wax u qabato intaas ayaa u badnayd in dadku wax qabsado waxaan moodaa muddadii burburka wax badan in laga faa'iiday kambaniyada dadka Soomaaliyeed maanta leeyihiin siday shaqada u barteen siday ugu dhiiranayeen inay kambaniyo kale oo caalami ah ay wax wadaagaan halka waxa la yiri kambani waa dhisaya laba kambaniyo kalena midna engineering ku sameeynaya midna supervision ku sameeynaya hawshaas hawl sahlan ma waxa muuqanaysa dadka Soomaaliyeed inay baranayaan sida aqoonta iyo caalamiga uga faa'iideysanayaan sida iyaga loo aaminayo kelmadaas uu sheegay garaadku waa arrin jirta markii annaga la arko nin kambani wato oo nin cadaan la socdo waxa la dhihi jiray hatta dadku waxa soo maray qashanka hadii la qaado qashankeena lacag nooga qaadanaysa annaga shaki ayaa dadka Soomaalida ku soo jiray maxaa yeelay wax sidaas oo kale looga shaqeeyo maysan noqon nolol dabiici oo iska degan bay ku noolaayeen marka hadii la yiraahdo waxa kan gaar baa loo leeyahay ilaa kambanigu waa wax gaar ah Soomaa dadkeena dhaqankiisu waa ku cusub dadka sameynayana la yaabaayo waa wixii aqoon kan lagu sameeyay waxa la rabaa inuu garto oo uu og yahay in dadkan waxa ka suuroobi karaan waqti ay u baahan yihiin ee arrimaha ugu gudbaan laakiin dadka wax garadka ay mas'uuliyiinta dawladda iyo odayaasha iyo xuqaasha runtii wacyigelin iyo sheeg weeye hadalkii garaadku hadal mug weyn buu ahaa oo uu ku tusaaleynayo xaaladaha la mari karo ee soo socda waxaan u baahanahay dabcan sida la sheegay mashruucan in la hindiso baa wuxuu qaatay sida hadda taariikhda laga sheekeeyay 60 sano dhow Soomaa hindisihiisa in la isku dayo inuu marka 60 sano ayaa waxa la lahaa masuuroobaysa marka la bilaabo inuu dhameystirmo intee qaadan doonta ma sahlana hay'alay dhismaha hadda qabsoomay marka loo fiiriyo hadafka laga leeyahay boqolkiiba 5 ma dhama maxaa yeelay deked baan dhisanayaa magaalo multicultural na dhismaayo isma keenayso dekeduhu waa interpointiga ay bulshadu isugu timaado dekemada ay garoomada Soomaa haddii halka la rabo in wax la dhiso deked la dhiso waxaad albaabka u furtay inay dadna ku yimaadaan dadna ka tagaan badeecad timaado badeecad baxdo isbedel baa imaanaya qoyskii koobnaayo shaqaane meesha halis buu galaya marka arrintaas arrin sahlan ma waxaan u maleynayaa marsooyinka magaalooyinka la ahaan jiray ee Puntland oo hore ilaa marsooyinku dabiici bay ahaayeen dabcan badda Hindiya dib baa haysto waa bad mawjado badan oo marsooyin badan ma leh magaalooyinka marsooyinka lahaa way ka ilbaxsan yihiin magaalooyinka xeebaha leh aan marsooyinka lahayn maxaa yeelay magaalooyinkan marsooyinka lahayn dadku badda darsi bay la ahaayeen noloshooda miyiga ku tirsanay dhaqan ahaan annagu ka manaafacaadsiga badda dhinaca khayraadka waa nagu yarta deegaanada marsooyinka leh dhinaca badda inay ka manaafacaadsadaan waxa uga badan inay ka tijaaraystaan taariikhda Soomaaliya marka dib loo raaco oo dooyo aada khaliijka iyo Indiya iyo ka yimaado waa nagu badnaan jiray laakiin ka manaafacaadsiga badda gudaheeda dadka Soomaaliyeed aad ugu badna marka hadda dadkan badda gala oo badda ka kaluumaysta waqti bay u baahan tahay si idaha looga kaxeeyay in la yiraahdo maxaa la yiraahdaa
badda ka tijaaraysta taasay hadda u dhow garan karaa taas dhan kharash badan bay u baahan tahay waa kaa hadda lacagta ku baxday oo loo ogay marka waxaan insha allah rajaynaynaa wax walba maalin bay bilowdaan maalin baa la bartaa garacad dadka yaqaanay oo soomaalida ah waa yaraayeen maantana waxaan u malaynayaa adduunka o dhan baa laga yaqaanaa soo maha waxaa aniga aada taariikhda u xasuustaa dadka nin walba horta deegaankiisa inuu macruuf yahay buu isu haystaa anoo arday oo elementary oo xamar joogaa nin macallin oo historyga noo dhigaya wuxuu ku soo daray magaalooyinka soomaaliya suu yiri qardho ardadii dhanaa la weydiiyey wax qardho gartaa la waayo anaa aqaanaa yidhi xamar baan joognay qardho weligood ma maqal marka nin walba degaankiisu yaqaanaa soomaalida laakiin markaa wax weyn ka dhigtid mashaariic ka samaysid magaalooyinka soomaalida caanka ah waa magaalooyinka xeebaha berbera boosaaso kismaayo soodaas ma ah xeebaha laakiin marsooyinka lahaa bay ahaayeen garacad hadday dekada lahaan lahayd waa hore magaalo caanay ahaan lahayd laakiin maanta markay dekad yeelatay qof kastoo soomaaliya ajnabi ah aniga hadda waxaa ugu badan markaa meelaha taga dad ajnabi ay weydiinaayo garacad boorta ka waran warbixin naga sii yani waxaa ay la yaaban yihiin deked baa waxaa laga dhisayaa soomaalidu dhisay ilaa hadda casrigii communicationkuna waa kordhay oo meediyihii baa xoogeystay marka horta de qofku waxaa la yidhi wuxuu isbooda maahan waa waxa dadku u arkaan way mashruucan dadku waxay u arkaan mashruuc aada u ballaaran oo success ah oo runtii dadka soomaaliyeed oo dhan sharaf u ah puntlandna gaar u ah garacad iyo mudugna gaar u sii ah arrintaas waxay u baahan tahay marka in la xaqiijiyo inay sidii dadku u haystay inay noqoto waxaan rajaynayaa insha allah kulamada kalena waan ku wada hadli doonaa mashruucan waa bilowgii dekeda oo inta hadda la sheegay marka ay dhamaystiranto ku filnaan doona in badeecada laga soo dejiyo badeecada laga saaro lakin waxaa meesha ku jiri doona waddadii waa maqan tahay waxyaabihii saacidayay dekeda oo hoteeladii garoonkii oo la dhiso ilaan ganacsataa imaanaysa soo maa mashaariicdii hadda uu laga sheekeeyey oo ah meelihii terminaaladii kaleeto ama hadday yihiin kuwii shidaalada ama hadday aan yihiin hangaradii badeecadda la dhigi lahaa ilaan badeecadda banaankaas lama dhigi kareen waxyaabo aada u fara badan oo corridorkaas mustaqbalka la rajaynayo in uu gaaro dekedaha inay wax ka soo degaan way sahlan tahay laakiin waxaa muhiim ah meesha taargetka u ah oo suuqa ah inay badeecadii gaarto oo wixii infrastructure ahaa ay u baahneed inay hesho hawshaas waxaan rajaynayaa ilahay idankiis fikirkeediina waa la hayaa dadaalkeediina waa lagu jiraa inay rumoobi doontana anigu shaki igama jiro ilahay idankiis waxaa keliya oo muhiim ah sida aan u maamulna inaan dekeda mashruuceeda fulino inaan u maamulno degaanka iyo dadkiisa aaday muhiim u tahay waxaad og tihiin dadka soomaaliyeed intay horumarka qabsoomayay u arki lahaayeen miday wada leeyihiin oo wada qaadan lahaayeen waxaa uga fudud inay mashruuc hadduu u arko inuu dugaankiisa ahayn inuu hor istaago waxaan u baahannahay mashruucan cadow badanna waa uu leeyahay xabiib badanna waa uu leeyahay waxaan rabnaa inta cadowga u aragta inaan ka dhigna xabiib innagoo adeegsanayna awood kastoo aan leenahay dadka soomaaliyeed iyo ajnabiga iyo cid walba usoo jiideen haddii dadka yimaada ee damca inay maal gashtaan ay ka markay yimaadaan soo dhaweyn waayaan waxa weeye carabta maamaha baa jirto intaadan guriga eegin waxaa la eegaa dariskaa layihi ya addaar qabla aljaar marka dadka waa muhim dadka shaqada wada dadka degaanka degan dad furfuran oo albaabada u furaya bulsho kasta oo u timaada waxaa ogaada boosaaso
deked yar bay ahayd welina waa tahay laakiin dekedaha soomaaliya oo dhan waxay ku dhaafsay waa magaalo aan qof kastoo taga uusan ka qaloonin magaalooyinka soomaaliya marka loo fiiriyo taasay unique ku tahay iyadoo yar ayay waxay ka shaqo badan tahay dekedo badan oo waaweyn waxaa keenaya waa dabeecadda deegaanka ilaa dadkaan hadday yidhahdaan ma xamaalanayno oo dhismihii kama shaqaynayno oo waxba ma qabanayno see u horumarayna waa caqabado jira soo maha dadkeenna waxaa la rabaa shaqada inay bartaan shaqadaa sharaf leh dhaqaaluhu waxaa la rabaa hadda fiiri haddii shaqaalaha dibadda kaaga yimaado dhaqaalihii soo baxay banaanku u baxaya waxaa la rabaa dhaqaalaha inuu saarkal noqdo oo wareego oo gudaha ku noqdo waxaan aada u rajaynayaa raggaga runtii halka jooga ee shirkadda wadaagsan iyo ganacsatada kaleeta ee halka fadhiya in mashruucan la hirgeliyo oo la maalgeliyo shaqo sahlan maaha laakiin waxaa kasii adag inuu shaqeeyo haddii nin walba intuu haystay uu yidhaahdo dekedaan ku maalgashta oo uusan ganacsigiiyo kasii shaqeyn haddii dhagaxan meesha laga dhisay dhaqaalo soo saari maayo dhaqaalaha waxa soo saaraya waa ganacsiga inuu socdo wixii laga heli lahaa maalgelinta soomaalida waxay u taqaanaa intay alaab sooya intoo la gado faa'iido laga helo wixii ka shaqaysiin lahaa baa la rabaa oo alaabtaas iyo ganacsigaas horumarin lahaa runtii istraatiijiyada ay ku taallo waa meel munaasab ah waxaan rajaynayaa muddo dhow in ay u dhammaystirmi doonaan dekedda habkii maamul ee dawliga ahaa ee dabcan shirkaddu dekedday maamulaysa laakiin shaqada dawladda ee amnigii leh ee customkii leh ee horumarinta degaanka iyo magaalada leh ee raadinta jidadka iyo maraafiqda la rabo inay ku fidda leh waxyaabahaas oo dhan dabcan qorshayaasha dawladda way ku jiraan waanan rajaynaynaa inay sida tabartu tahay uguna dhaqsaha badan wixii dawladda dhinaceeda laga filaayo inay fulaan hay-adaha dawladdu ay soo shaqo galaan waxaan u rajaynayaa shirkaddan in ay ku guulaysato shaqada qeybteeda adkeyd oo ah markay dhismaha dhamayso waxaa la rabaa qeybta ugu daran waa marketing inay ummaddii kusoo xirto halka dekeda oo ay shaqayso oo badeecadihii yimaadaan oo dadku ay dareemaan inay helayaan facilities ku habboon inay ka shaqaystaan meeshaan dabcan ganacsatada waxaa laga rabaa waxyaabaha ugu horeeya oo la rabo waxa weeye dekedan markay gabagabada ku dhowdahay in la helo cid hotel fiican ka dhistay ilaa ninka ganacsadaha kaamkaan idinkaa dhistay halka degan soo maha qof iyo labaa martin gelin kartaan soo maha waxay u baahan tahay hotel fiican in laga dhiso waxay u baahan tahay caafimaadkii in la horumariyo waxay u baahan tahay dadka ajaanibta ay ka shaqayn doonaan bee-a munaasab u ah ay ku noolaan karaan waxaasoo dhan waa shaqooyinka aan is leeyahay maalgelinta waaweyn uma baahno oo dadka individual baa samaysan kara ama kambaniye gaar ah laakiin waxaa laga rabaa kambaniga wadaagsan ee la rabo inuu develop gareeyo inuu la yimaado howlaha oo qofka investorka markuu u yimaado u yihahdo mashruucan waa daraasadiisii ganacsiga waa diyaarsantaha feasibility studygiisii oo isagu halkaa ka qabsado in intuu qofku yimaado isagu u baadi goobo oo isagu uu fiiriyo wakti badan bay ka qaadanaysaa lakin waxaa la rabaa wadaagsan inay ku darsato qorshaha dhismaha keliya maamulidda maahane horumarinta degaankan ama corridorkan inay xisaabta ku darsato dawladda iyo hay-adaheedana runtii annaga qorshahaas qeybta nagaga aadan inaan qaadanaan rabnaa hadda ka hor waan ka wada hadalnay waxaan rajaynayaa wasiirkii wasaaradda qorshayntana waa u joogaa iyo dekedaha waxaa la rabaa mashruucan in loo diyaariyo mashruuc mutakaamil ah corridor jidadkiisii leh magaaladiisii leh designkii iyo qorshihiisii la sameeyo daraasadihiisii leh haddii cid maalgashanaysa iyo haddii dawlado naga caawinayo labadaba loo bandhigi karo marka insha allah daraasadaasna dawladda ayaa qaadi doonta haddii ilaahayadmo nagala shaqayn doontaa haddii ilaahayadmo waxaan rajaynaynaa 2 sano kadib waxaan u nimid iyadoo la rumeeyey maxaa la yidhahdaa inay dekedii bilaabatay insha allah 2 sano kadibna waxaan u imaan doonaa iyadoo waxyaabo badan oo asaasiya dekeda leedahay oo si fiican u shaqaynaysa
shaqadeeda ugu horeysa sanadka soo socday bilaaban doonta, laakiin waxaan rajaynayaa sanad kadib inay noqon doonto shaqo lagu naaloon kara, dalkana dhaqaale badan soo gelisa, dowladdana dhaqaale soo gelisa, horumarkana sii ballaariya. qodobka ugu muhiimsan waxa weeye inaan ka wada shaqeyno amniga iyo sharciga deegaanka Garacad, gaar ahaan dhulka ay yeelan doonto dekedda Garacad iyo hareeraheeda. mashruucan waxaan rabnaa inaan digrii ku soo saarno, mustaqbalkana la diyaariyo dhulkiisa iyo siduu u ekaanayo wax lagu qaban doono. dadka Soomaaliyeed waan ognahay wax wada yeelashadu waa ku adag tahay. waxaa la rabaa inaan u diyaar garowno mashaariicdan inay noqdaan mashaariicdii ab la dhaxli lahaa. wuxuu qof isku dherariyey mashaariicda noocan oo kale ma aha. waxaa la rabaa mashaariicdan inay noqdaan mashaariicda mustaqbalka wax ka bedeli doono jiilkeenni soo socda. waan hubaa inta la xasuusto dhowr qarni Garacad bacaadkan iyo dadka odayaashii waagaa joogay siday hadda u egtahay unbay okay. maanta ay suuragal tahay inay isbedesho. waxaana bedelaya waxa weeye markay dekeda dhisanto. haddaad deked dhismi lahayn dee sabab loo maalgeliyo hoteelo looga dhiso miyay jiri lahayd? ma dhici karayso. markii la rabo in magaalo la bedelo waa in wax aasaasiya oo kalifi kara inay waxaas u adeegaan in laga sameeyo. sidiisaba adeegu wuxuu yimaadaa baahi baa keenta. haddaan baahidii jirin adeegu ma imaanayo. marka waxaan rajaynayaa haddii la haydno si gaarana waa isku arki doonaa odayaasha deegaanka, laakiin waxaa la rabaa shirkadda iyo dadka gacanta ku haya ruuxaddoodu waxaa laga rabaa inay bulshada halka joogta inay kula hadlaan wax ay fahmi karaan. cilladahaasaan leenahay dadkeenna wax maamula. waxa aan rabnaa inaan wixii intaan iska qabanno hadhow markii laga hor yimaada in yihahdo maxaa loo diiday. inta aan la diidin dadka inaad ka dhaadhicisid weye, in dadka la gaaro weye, in waxaa rabtaan iyo faa'iiduu leeyahay dadka loo sheego weye, si ay dadka u fahmaan oo gacan aada uga heshaan. dadkeennu waa dad fiican, waa ku kalsoonahay intay isimada joogaan oo cimrigooda allaha raajiyay Garaad Maxamed Cilmi iyo rag lamid ay joogaan inaan caqabad bulshada ka timaada aysan jiri doonin. laakiin mar walba yuu naga xumaanin communicationka, isfahamka iyo is-afgaradka yuu naga xumaanin. waxaan inii ballan qaadaynaa dowlad ahaan, xukuumad iyo awoodaha hay-adaha dowladda oo dhan inay gacan ka geysato mashruucan sida uu hirgeli lahaa oo u taabageli lahaa. dhammaan hay-adaha dowladda ee sida tooska u khuseyn doonana waxaan qorsheynaynaa intaysan mashruucu bilaaban hay-adahaas o dhan inay halka soo degaan. bankiga inuu soo dego, wasaaradda maaliyadda soo degto, wasaaradda gadaha soo degto, wasaaradaha aasaasiga u ah mashruuca shaqadiisa inay xafiisya halka ugu yeeshaan oo functional noqdaan baan rajayn doona haddii lahayn. idinkana aad baad u mahadsantihiin waktigiina iyo sida aad ihtimaamka u siinaysaan. wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu.